shan bilood oo uu talada hayay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro. maanta waxaa daatay dhiiggii ugu horreeyay iyo dad shacab ah oo mudaharaadaya oo ay ciidamada nabadgelyada ee Somaliland u adeegsadeen rasaas. banaanbaxa Burco ayaan lagaga soo horjeedin dawladda, balse waxa uu salka ku hayay saraakiil ciidan oo naftooda u huray sidii ay Somaliland u jiri lahayd, kuwaasi oo ilaa iyo haatan ku xaniban xabsiyada magaalada Laascaanood. in ka badan 30 qof oo ku dhaawacmay rasaasta ay adeegsanayeen ciidamada boolisku iyo 2 qof oo ku dhintay mas'uuliyadooda qaadaya. dhacdada tan ma isku seegi karaan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro bariga Burco? maxay yihiin xogaha ka soo kordhay maxaabiista la sii deynayo ee banaanbaxa ka dhaliyay? warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. kacdoonka magaalada Burco sida lama filaanka ah uga qarxay maanta ayaa ay isku dayeen ciidamada boolisku inay xakameeyaan, kuwaasi oo intii hore aan rasaas nool adeegsanayn, balse markii ay xakameyn kari waayeen ama si awoodi waayeen dejinta dadka cadhaysan ee isugu soo baxay wadooyinka waaweyn rasaas nool u adeegsaday. tanina waxa ay sababtay dhimasho iyo dhaawacba inuu yimaado. in ka badan 30 qof ayaa ku dhaawacmay inta haatan la xaqiijiyay, iyadoo ay jiraan 2 qof oo dhimasho ah. mas'uuliyadda khasaarahan iyo inay iska hor yimaadaan xukuumadda iyo reer Burco ayaa waxa qaadaya barasaabka marka loo eego amarka ugu sarreeya gobol oo uu isagu hayay. waxana uu sheegay Mustarimaah in ay ku amreen ciidanka dadka inaanay wax xabada ku ridin oo ay iska dhameystaan mudaharaadkooda, marka dambena iska digi doonaan mar uu hadlay. waxana uu sheegay in maxaabiis la sii deynaya aanay jirin, balse taasi xaqiiqooyinka iyo ficilada soo baxaya ayaa khilaafaya marka la eego khasaaraha nafeed ee meesha ka dhacay. ilaa iyo haatan magaalada Burco ayaa kacsan, inkasta oo mudaharaadkii uu haatan joogsaday, balse wax ka weyn ayaa yimi oo nafo ayaa go'ay. khasaare xooggan ayaa jira oo dhinaca dhaawaca ah. khaladaadka ay dadka shacabka ah leeyihiin iyo khalad fahamka banaanbaxyada ayaa sababa had iyo jeeraaleba khasaare xooggan, iyadoo dadku marka ay cadhoodaan ay dhagxiyaan ama se rabshaan xarumaha dawladda oo ah kuwa ay iyagu leeyihiin oo loogu shaqeeyo. xataa baabuurta iyo agabka kale ee ay jajabinayaan ayaa ah mid ay iyagu iska jajabinayaan oo aan waxba ka qabanaynin arrinta ay ka cadhaysan yihiin. ciidamada nabadgelyada ee Somaliland oo kaalin muhiim ah ku jira ayaa inta badan isku dhacyo ay dhex maraan dadka shacabka ah, iyagoo aan ka ilbixin inay rasaas nool u adeegsadaan, marnaba tudhaale u samaynin banaanbaxayaasha. tanina waa mid kale oo soo dedejinaysa boolisku halkii uu ka noqon lahaa saaxiibka bulshada, in ay dadku nacayb u muujiyaan ama se ka fogaadaan, maadaama oo ay cadow u arkayaan marka uu rasaas nool u adeegsado. magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ah wadnihii guusha ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. muddo 5 bilood haatan laga joogo ayaa uu xilka la wareegay madaxweynuhu, iyadoo maantana uu daatay dhiiggii ugu horreeyay. magaalada Burco ayaa xasiloonideeda iyo sida ay xukuumaddu u dejiso la eegi doona, inkasta oo aan la saadaalin karinin kalsoonidii ay bariga Burco u hayeen madaxweynaha Somaliland inay kala noqon doonaan iyo inay u sii hayn doonaan, maadaama oo uu yahay madaxweynihii qaranka 5 sannadoodna ay doorteen. xogtan shacabka kicisay ee ah in maxaabiis la sii deynayo ayaan ilaa iyo haatan la garanaynin meesha ay ka timi, balse waxaa la ogyahay shacabka gobolada bariga inay si weyn uga cadhoodeen in la sii daayo saraakiishii maamul goboleedka Puntland lagu wareejiyay, taasi oo la oran karo taasi oo u muuqanaysa banaanbaxyada Burco ka dhacay inay salka ku hayaan oo ay baasiir u noqotay warkan ay dadku heleen ee ah in wadda laga qaadayo maxaabiis cusub oo ay saraakiil ku jirto. kacdoonka Burco ayaa isu bedeli karaa mid xukuumadda looga soo horjeedo haddii aanu madaxweyne Ciro qaadin tallaabooyin isku xiga oo wax lagaga qabanayo banaanbaxan Burco ka dhacay ee khasaaraha dhaliyay.